Cimilada Jupiter waxay yeelan kartaa wax la yaab leh oo la mid ah ifafaalaha dunida, laakiin waxyaabaha qaarkood waxay diidaan sharaxaad sahlan. Hadda, saynisyahano ayaa la yimid mid ka mid ah si ay u sharxaan sifooyinka halabuurka qalaad ee daruurtiisa duurjoogta ah. Inta lagu guda jiro duufaanada Rafa ee Oncod iyo Hilaac, Jupiter roobka roob dhagaxyaale ah, mushpals, alums weyn oo baraf mushi ka kooban yahay ammonia iyo biyo, la joogto ah sida baraf qoyan ama slushee dukaanka ku habboon. Waa muuqaalka ugu wanaagsan ee irbixiyayaashu ay la yimaadeen si ay u sharxaan sababta jawiga Jupiter iyo kuwa Saturn, Uranus iyo Neptune ay u leeyihiin qaybinta ammonia. Imke Debater iyo aniguba waxaan la midnahay, ma jirto waddo adduunka ka mid ah tani waa run, ayuu yiri saynisyahanka meeraha Chris Moetkel oo ka tirsan Jaamacadda California, Berkeley, oo hogaaminayay cilmi baarista. Waxyaabo badan ayaa ah inay isu yimaadaan si ay dhab ahaantii u sharaxaan tan, waxay u muuqataa mid qalaad. Asal ahaan waxaan ku qaatay 3 sano oo isku dayaya inaan caddeeyo khaladkan. Mana caddayn karin inay khaldan tahay. Mala awaalku wuxuu markii ugu horeysay soo shaac baxay 2 markii saynisyahanada daraasaynaya xogta Jupiter probe Juno ay soo jeediyeen hanaan gaar ah oo loogu talagalay soo saarista ammonia iyo biyaha jawiga sare ee meeraha. Duufaanada waaweyn ee Jupiter waxay soo jeediyeen inay ka saaraan biyaha sare ee daruuraha biyaha meeraha, halkaasoo ay kula kulmaan uumiga ammonia ee dhalaaliya barafka. Kadibna, biyaha iyo ammonia waxay wada barafoobaan qabowga daran. Halkan meelaha sare ah, ammonia waxay u dhaqantaa sida barafka ka hortagta, hoos u dhigta barta dhalaalka ee barafka biyaha waxayna u oggolaanaysaa samaynta daruur leh dareeraha biyaha ammonia. Saynisyahanka meeraha Heidi Betker oo ka tirsan shaybaadka Jet Propulsion Laboratory ee NASA ayaa sharaxay wakhtigaas. Xaaladan cusub, dhibcooyinka soo dhacaya ee dareeraha ammonia biyaha waxay isku dhici karaan kristaalo barafka biyaha ee soo socda waxayna kicinayaan daruuraha. Tani waxay ahayd wax aad loola yaabay, maadaama daruuraha biyaha ammonia aysan ka jirin dhulka. Jupiter Hailstorms wuxuu tuuray kubadaha giant slushee ee ammonia iyo biyaha. Si loo baado in tani ay xataa suurtogal tahay, Moetkel iyo asxaabtiisa, Imke Debater oo ka tirsan Berkeley iyo Horsey of Alted, ayaa dulmariyey xog ay ururiyeen Juno iyo Telescope Space Hubble bishii Luulyo 2017, iyadoo baadhitaanku uu ku dulduulay duufaan weyn oo hilaac ah oo ilaa maanta socda. Juno wuxuu ku qaatay cajalado 6 jeer oo kala duwan oo raadiyaha ah isagoo wata qalabkiisa raadiyaha microwave, halka Hubble uu indha-indhayn ku sameeyey ultraviolet, indhaha, iyo hirarka dheer ee infraredka. Jawiga Jupiter waa duur aad u qurux badan oo leh duufaano badan oo ka duwan wax kasta oo dhulka ka jira wakhti kasta. Inta badan cimiladu, si kastaba ha ahaatee, waa mid yar. Qoraal horudhac ah oo hadda ku socda dib u eegis asaageed, Moetkel, Debater, iyo koox gaar ah ayaa qeexaya qaab-dhismeedka 3 ee jawiga sare, taas oo muujinaysa in badi hababka cimiladu kaliya ay dheereeyaan 1 ilaa 2 kilomitir, 2 ilaa 4 mayl, oo ka hooseeya daruuraha muuqda. Qaar ka mid ah nidaamyada cimilada, si kastaba ha ahaatee, waxay si qoto dheer u galaan troposfere, sida duufaanada Iclonic, xadhkaha daruuraha hodanka ah ee ammonia, iyo duufaanada hilaaca rabshadaha leh ee ay ka soo baxaan mushpals. Mar kasta oo aad eegto Jupiter, inta badan waa heerka dusha sare. Waa mid qoto dheer, laakiin waxyaabo yar, wareegyada iyo duufaanada waaweyn ayaa feeraya, Moetkel ayaa sidaas leh. Waxaan asal ahaan muujinaynaa in dusha sare ee jawigu uu dhab ahaantii yahay wakiil xun oo ka mid ah waxa gudaha meeraha. Dabaylahan mushpal waxay si wax ku ool ah u kala saarayaan jawiga sare. Mushpalsku way sameeyaan wayna soo dhacaan, oo hoos u dhigaan jawiga ammonia ilaa 5 kilomitir, laakiin waxay si qoto dheer u sii geliyaan gudaha meeraha. Jupiter Hailstorms wuxuu tuuray kubadaha giant slushee ee ammonia iyo biyaha. Jantus qeexaya samaynta iyo roobabka mushpals ee Jofian. NASA Gipil Alter, Anas. Markii hore, saynisyahanadu wax fikrad ah kama hayn waxa meesha ka saaray ammonia. Mushpals ayaa si fiican u sharaxaya. Biyuhu waxay ku bilaabaan socdaalkooda qoto dheer ee daruuraha ka hor inta aan kor loo qaadin, la kulanka ammonia, oo ay ku daraan saamiga qiyaastii 3 qaybood oo biyo ah iyo 1 ammonia. Burooyinka isku dhafan ayaa barafoobay oo si qoto dheer ugu dhacaya Jupiter, halkaas oo ay ka baxaan oo ay dhigaan waxa ku jira. Tani waxay u baahan tahay shuruudo gaar ah, sida kor u qaadyo aad u xoogan si loo qaado biyaha, iyo isku dhafka aadka u degdega ah si ay likaha u samaysmaan oo u koraan si ku filan si ay uga badbaadaan roobka dib ugu noqda jawiga Jupiter. Qoriga qiiqa wuxuu ahaa hal calaamad oo ku jirta xogta raadiyaha Juno. Waxaa jirtay meel yar oo daruurta hoosteeda ah oo u eg qaboojin, taasoo ah baraf dhalaalaysa, ama xoojinta ammonia, taas oo ah dhalaalida iyo sii daynta ammonia, ayuu yidhi Moetkel. Waxay ahayd xaqiiqda ah in sharaxaad kasta ay suurtagal ahayd oo kaliya mushpals, taas oo ugu dambayntii igu qancisay. Habkan gaadiidku uma badna inuu noqdo mid gaar u ah Jupiter. Saynisyahanadu waxa ay qiyaaseen in habab la mid ah laga yaabo inay ku ciyaaraan dhammaanba.
meerayaasha waaweyn ee nidaamka qorraxda iyo wixii ka dambeeya. Aynu rajayno in indha-indhaynta mustaqbalka ay heli karaan.